ulugeynta goob waxbarasho oo uga fog meesha aad ku nooshahay yacni lugeyn waxbarasho oo deegaan ah ma ahan wax fudud oo qof walba uu samayn karo ilaa dad yar oo alle uu garan siiyay ahmiyadda ay waxbarashada u leedahay aadanaha. dowladan waxa u soo socdaa nus saac mar walba oo roob da'o ama inuu roob diin waan u soo dhaweeyaa waxbarashada. Cumar Maxamed iyo Sacdiye Yunis Nuur waa labo arday oo ka kala yimaada tuulooyin lagu kala magacaabo Timire iyo Buura Waraay oo ka mid ah tuulooyinka gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana si maalinle ah ay waxbarasho ugu soo doontaan tuulada Geedo Barkaan oo qiyaastii u jirta 1 saac ilaa iyo 1 saac iyo bar oo ah cabirka lug socoshada yacni lugeynta oo ay tirsadaan dadka miyiga degan. Cumar Maxamed ayaa warbaahintan City uga sheekeynaya safarka uu subax walba uu u soo galo waxbarashada. roob adoo yowdan waa imaadaa markisto dowladan waxa u soo socdaa nus saac ayaan u soo socdaa mar walba ka roob waa imaadaa markisto roob adoo yowdan waa imaadaa waxaan jeclahay in waxbarashada heersare si gaarsiiyo waan ku dadaalaa insha Allah waxbarashada. Dhinaca kale Sacdiye Yunis ayaa iyadana mar ay warbaahintan City la hadlaysay waxay tiri magacayga waa Sacdiye Yunis Nuur oo imaad tuulada Buura Waraay waxaan dhigtaa iskuulka Geedo Barkaan. waxaan jeclahay inaan ku dadaalo waxbarashada mar walba oo roob da'o ama inuu roob diin waan u soo dhaweeyaa waxbarashada si aan heerka sare u gaarsiiyo waxaan u socdaa 40 daqiiqo. in badan oo ka mid ah dadka degan miyiga fogfog ma helaan dhammaan adeegyada bulshada sida caafimaad, waxbarasho iyo waxyaabaha la halmaala, waxaana qoysaska qaar ay caruurtooda u soo diraan magaalooyinka iyo deegaanada kale ee waxbarashada laga helo si ay u noqdaan dad wax barta. Cumar iyo Sacdiyana waxa ay tusaale u noqon karaan boqolaal qoys oo la mid ah qoysaska ay iyagu wax u bartaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.